السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan fiirinaynaa ongen blockchain-ka financial wuxuu sameeyaa wuxuu ongen analyze haddaan taqaanin waa wuxuu application yar oo AI uu sameeyey haddaa rabtid BNB Bitcoin Base Polygon Ethereum ISP Aptos adiga waxaa laga fiiriyaa ongen analyze haddaa rabtid oo waxa ongen dhexdiisa hadaad rabtid inaad aad ogaatid hadda Cardano fiirinaynaa waa transaction volume 1 hour soo gashay 840 total transaction waa soo gashay 220 milyan oo intaas kaliya soo gashay haddaad all time high oo real time oo meesha ay gaartay Geffen developer-ku waa 3683 ish ku haysta Gen review waa waxay samaysay intaas samaysay Cardano hoosay jirtay marka haddaa rabtid in aad ogaatid ongen analyze hadda coinaha qaar kuma jiraan laakiin insha Allah update ay wataan waa soo gelin doonaa oo ayagaa soo gelin doona marka wuu ku anfacayaa si tartiib ah haddaad markadka waa average fee-ga waa price-ka waa layer 1 intaas oo dhan Cardano stability meeshaan hadda mid kale aadaynaa haddana horta waxay gaartay 8 TBC 1 hour haddaan geeyo saan aan dhahaynaa mid kale raadi C aan fiirinaynaa C ama waxaan fiirinaynaa ama Solana fiirinaynaa Solana waa transaction volume maanta oo waa 3.28 milyan waaye total transaction maray waa 170 bilyan waaye real time 91 Solana developer active isha ku haysta waa 10,939 intaas samaysay fee-geedu waa price hadda now waa 85 market cap complete adiga intaana qarnaysa haddaa rabtid sida ongenka dhexdiisa wax ka dhacday haddaa rabtid inaad babaartid oo coin lagu sheego oo halkan lay ka raadiyeen see u raadinaysaa marka haddaa rabtid inaad raadisid oo coin aad lasoo sheegay inaad ogaatid rabtid saa samaysaa xaggaa gelinaysaa name Sui oo kale hadda magaca waxaa ugu horeysaa green Sui oo kale iyada soo baxday total transaction iyadana waa Sui 4.57 bilyan developer waxay haystaa 1462 active Gen revenue minus